وإذا سلامي دمانتينا مقاعيقو وإبراهيم آدم كسو دو جانالكيغا waxaanu soo gudbinaa mowduucyo ku saabsan dhaqaalaha horumarinta nafta iyo dhiirigelino sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa mowduucyo kale fadlan nagu soo bir oo subscribe noo saar oo mahadsan tahay marka aynu runta si fiican iskugu sheegno farxadu ma ahan sida dareento marka aanay wax dhibaato ay ku hiisan balse markaad ogaato dhibaatooyinka ku haysta ee aad ogaato dhibaato walba oo ku soo wajahda aad ka gudbi karto oo dhaahbaale waxaan ku dilinba wuu ku adkeeyaa marka maanta waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago dhowr qodob oo aan rajaynayo inay ka caawin doonaan inaad ka gudubto ama aad u adkaysato waqtiyada adag ee nolosha qodobka ugu horeeya xanuunku waxa uu ku xasuusiyaa in aad weli nooshahay haddii aynu bini aadam nahay waxaynu rabnaa in ay wax walba inoo hagaagaan inagoonan far dhaqaajinin waxaynu rabnaa inaan wax walba si degdeg ah ku helno balse sida runta ah ayaa ah wax walba oo qiimo leh waxa uu qaataa waqti iyo samir fara badan rafaadkaaga iyo xanuunka fara badan ee ku haysta ma ahan inaad kufayso ama aad dhacayso sababtoo ah wax kasta oo qiimo lihi waxa ay kaaga baahan yihiin samirkeeda iyo shaqadeeda haddii ay dhib yar tahay ama ay xanuun yar tahay in madaxweyne la noqdaa dadkoo dhan ayaaba noqon lahaa hadiidin waqtiga adag iyo xanuunka balse u isticmaal si uu ku dhiirigeliyo una sheeg naftaada in xanuun walba uu ka dambeeyo farxad iyo rayn arinka labaad waxa uu yahay wax walba waa ku meel gaar wax walba waqti ayay leeyihiin habeenka maalin baa ka dambaysa oo hinta farxad baa ka dambaysa xanuunka caafimaad ayaa ka dambeeya markuu waqtigu kugu adkaado waxa ka dambeeya waqti farxad leh haddii aad faraxsan tahay maanta si wanaagsan u isticmaal waayo wax yar kadib way isbedeli doontaa sidoo kale haddii aad murugsan tahay maanta iska dulqaado waayo wax yar kadib waad ka bixi doontaa shan ilbiriqsi oo uu fikir yar madaxaagu dhex wareegayo oo ka dhigo mid madluum ah ha u ogolaanin naftaada in ay aaminto qof madluun ah noloshaada oo dhan sidoo kale arinka saddexaad waxa uu yahay walwalka iyo cabashada faraha badan waxba kuguma soo kordhiyaan fiiri runta sheeg qof walwal badan oo cabasho badan saaxiib ma la noqon lahayd aniga xaggayga waa maya waayo walwalka iyo cabashada faraha badan waqtigii aad kaga fakari lahayd sidaad u gaari lahayd meesha aad rabto ayuun bay ka qaadanaysaa ama se waxay ka qaadanayaan sidii aad u maarayn lahayd hawl ku hortaale ha ka walwalin hana ka cabanin nolosha ilaahay oga mahadnaq dhibaato kasta oo ku haysata waayo dadka aan dhibaato haysanin waa kuwa aan jirin ama se aan dhalanba saddexdaas arimood ayaan jeclaystay maanta inaan idinla wadaago sidoo kale waxaa jiro qodobo kaleeto oo mowduucan la xiriira insha Allah muuqaalka dambe ayaan kusoo gudbin doonaa iyakana waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan nagu soo bir oo subscribe nagu caawi sidoo kale muuqaalkan like button-ka noo taabo waad mahadsan tahay sidoo kale waxaan ku leeyahay ku raaxayso noloshaada peace